madaxweynaha gobolka Banaadir insha Allah soo socdana waa adiga runtii waxaan haysanaa gudoomiye runtii u qalma bulshada caasimada gobolka Banaadir u qalmaan haysanaa magaalada Muqdisho Dr. Xasan Xuseen Mungaab golaha wasiirada golaha xildhibaanada gudoomiyaasha degmooyinka agaasimayaasha xildhibaanada deegaanka iyo haweenka civil society-ga odayaasha dhaqanka dhalinyarada dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii caawa waxay tahay habeen aad iyo aad ay caasimadoo dhan ay u faraxsan tahay wax aanan runtii aanan malaynayn inaa meeshaan lagu soo bandhigay waxaan aad ugu faraxsanahay oo aad aan u soo dhaweynayaa Soomaaliya inay hormartay caawa kala dareemaysaan in waxaan ku iraaday qofkii wax qabtay lagu abaal marinayo ee bulshadu ayagu ay abaal marinayaan runtii caawa waa fursad weyn oo la gaaray waaye waana hambalyeynaya teamkan Somali Night Award waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin gudoomiyaha wax qabadkiisa ee halka sano ay aad soo bandhigteen waxaan arki jirnay gudoomiyaashii ka horeeyay ayagoo 3 bilood cid wax ku qaban kartaa ma leh soo 100 maalmood soo bandhigay laakiin wax qabadka halka sano ah ee caawa la soo bandhigay waxaan leenahay ay bulshadu ay ka timid ay dhaheen bulshada wax qabadkaadii caasimada ayaan kugu abaal marinaynaa mudane gudoomiye runtii waa wax weyn wax aad iyo aad u weyn waaye waxaan leeyahay bulshadii ay ka timid aad iyo aad u mahadsantiin qofka waa in la dhiirigeliyaa markii la dhiirigeliyo wuxuu qabanayaa wax weyn oo sii qabanaya dadkiisa waa u adeegaya annagu adeegayaalaan nahay ma ogin waxaan qabanayno laakiin inay bulshadu ay ka timaado ay yiraahdaan bulshada gudoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay waxa aad qabatay asiga xataa inuusan ogeyn laga yaabaa waxaan tirada badan ee caawa bulshada ay soo bandhigtay laakiin asigu ay dadaalkiisu tahay wax qabo runtii waxaan xasuustaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Dr. Xasan Xuseen Mungaab markii la magacaabayay caasimada aad iyo aad ay u soo dhaweysay nin la jecel yahay hore wax u qabtay wax ka tagtay la sugaayay meel xun ayadoo bahasha marayso ayuu yimid dhaxdu ka qabtay usha hore u hogaamiyay si qurux badan ee caasimadu maanta ay u taalaa wuxuu imaaday wali kama dhicin ayadoo intaasoo milyan ay waxaan ku iraado fayl ugu jirto doorasho in wadanka aanan abni u ahaa marka waxaan leenahay runtii waxaan haysanaa gudoomiye runtii u qalma bulshada caasimada gobolka Banaadir u qalmaan haysanaa waxaan leenahay mudane gudoomiye annagoo dhan waxaan ku leenahay annaguna gobolka Banaadir bulshada degan aan ka mid nahay qaasatan maamulkii aan ka mid nahay hoggaankaadii fiicnaa sida quruxda badan ee aad u wado caasimada waxaan leenahay aad iyo aad ay caasimadu kaaga maqsuusan tahay wadooyinka maaragtay la sameeyay maanta waxay maraysaa in nadaafadii maanta u dambeysay xeerkeedii uu saxiixo nin ku dhaca oo gudoomiye ka horeeyay oo arintaas saxiixi kara ma jirin maanta caasimadu waxay leedahay xeer qabanayo qofkii qashin banaanka soo dhigo wali ma aysan dhicin waxa waaye caasimadu way hormartay waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxaan leenahay ummadii caasimada inay ku jeceshahay caawa halkaan aan ka garanay halkaan aan uga jeednaa hore u wad hawshaada waxaan ku leenahay madaxweynaha gobolka Banaadir insha Allah soo socdana waa adiga waxaan leenahay mudane madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane dal xureeye aad iyo aad aan asigana ugu mahad celinaynaa waa mahadsantiin wuxuu magacaabay uu noo keenay qofkii mudnaa caasimadan inuu joogo oo ka shaqeeyo qofkii mudnaa ayuu noo soo xulay waxaan leenahay
مدن مدحوينه آدي آدا أمهات سنتا دل حرية سودوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته